kadib markii ay maxkamaddu sheegtay gabadha lagu magacaabay Gina Grover ay dil geysatay balse dilkeedu uu yahay mid shaki laga qabo maxkamaddu waxay amar ku bixisay in baaritaan dheeraad lagu sameeyo dilkaas inay geysatay in kale haddana goobta ay ku sii socdaan marwa maxaa sheegtay marwa maxaa dhacay waxa sidee u jiraan Gina Grover dad dilowga dad cunooy ku darsatay kaleexdeedii yani cuni iska banay wadada kaleexda ma geysatay dilkaas nabadar marwa sidaad arkaysaanba gabadha lagu magacaabay Gina Grover sidan hore idinkugu sheegnay maxkamadda ayaa waxay amar ku bixisay in baaritaan lagu sameeyo balse lama oga dilkan si sax inay u geysatay iyo in kale kulay waxaan arkaynaa booliisku waxay noo soo sheegaan saldhigga loo keenay Gina Grover in lagu baaro kiiskeeda haddana waa hor taagannahay Gina Grover waxaa lagu sheegay 2 maalmood ka hor inay dil geysatay balse aniga aqoon dheeraad ayaan u leeyahay gabadhaas waxay la shaqaynaysay in muddo awaana suxufiyad hal TV ayaan ka wada shaqay jirnay hadalkan waa sax Gina Grover waxay ahayd gabar saxafiyad oo anaga nala hawlgashay sidaas oo ay tahayna waxa inaga nooca dambigan in dusha laga saaray oo lagu soo eedeynayo aniga waan hubaa gabadhan inay ahayd gabar wanaagsan shaqadeedana si wanaagsan waliba u gudanaysa dad been abuur ka sameeyay ayaa Gina waxay rabaan dambi aysan lahayn dusha inay ka saaraan arrintaasna haddaan saxaafadda nahay waan ka soo horjeednaa cadaaladana waxaan rabnaa garsoor saxa in Gina la siiyo ilaa hadda saldhigga booliiska hortiisa ayaan taaganaa waxaan sugaynaa caddeyn buuxda inay keenaan booliiska taasoo ku saabsan suxufiyadan dambigeeda Gina Grover kiiskeeda waxaa gacanta laga saaray isbitaal Lukande waxaan sugaynaa goorta soo gaaray saldhigga sidaad haddaba arkaysaan daawadayaal isbatoore Lukande ayaa soo gaaray saldhigga balse waxaan sugaynaa isbatoore Lukande waxyaalaha uu na dhihi doono iyo jawaabta uu bixin doono haddana waxaan rabnaa isaga inaan waraysi la yeelno idinkana waxaan idinka rabnaa indhaha inaad nugu haysaan oo aad dhegaysataan warbixinta aan idin soo gudbin doono isbatoore Lukande wax noo sheeg isbatoore sidee wax u jiraan gabadhaas ma waxaad rabtaa inay xirtid weliba cadaalad darro ii sheeg bravo waad ka baxsateen waxaad doonaysaan annagoo baaritaan aanan samaynin in warbixin aan idin siino taasi suurtagal maaha annaga dawladda waxaan ka codsanay muddo 3 maalmood inayna siiso kadib ayaan jawaab cad idin siin karnaa idinkana meesha waxaa la taagantiin warbixinna siiya adiga qalad ayaad naga fahmaysaa waxaad og tahay ma jiro 24 saac warbixin ayaad sidaas u raadinaysaan warbixintaasna waxay u baahan tahay caqli iyo maskax inaad ku raadisaan 24 saac dawladda ayaad eedeynaysaan dawladda aad eedeynaysaan aniga kama tirsan ee isbatoore Lukande ayaan ahay amarkayga oo kaliya ayaan ku shaqeeyaa يا يمد ها مدنا نجيه مدن صدق أرنتان أنا مخلنا مدن ما حكى جري جواب نقصي وحنا مجران مسؤول سكلي ها مدن واضح شنايا دنبي كان تلك ما يسنكيسن بولا أي كعب ستصابت تلك وكيسن سمعتها بوليس كبومبا وحن كعد سنايا كيس كان إني دبوا قلابتان دوبس ميا كو سocda maya markii aan wareystay kadib ayaad doobitaanka bilaabi kartaa magacayga waa Lukande warbixinteedana sidee ila tahay hore ay ku soo gaartay mana ihinin ciyaar qaata dariska ciidanka booliska ma wato sababtoo ah aniga ma baqaato qalbigayga run ayaa ka buuxa sharciga markay noqotana wax badan oo been ayaa ku dhex duugan sharciga inaan jibiyana agteeda wax weyn kama ah dadka runta inaan ka soo saarana kaba sii daran 17 sano ka hor waxaa jiray nin boolis ah oo lacag darteeda sharciga u jami jiray laakiin aniga sidaas ma ihi istaalkayga ayaan u jibiyaa kiisas badan ayaa hore igu soo guulaystay weligeena kiis ma ka guul daraysanin sidaas ay tahayna sharciga si fiican ayaan ka saa qofka dambi markuu galo uuna dil geysto wuxuu isku dayaa dambigaas inuu inkiro hal noocaas oo kale hore waan u soo galay
wax caddeynana ma aanan reebin isla mar ahaantaasna sharciga waan ka badbaaday duubitaankaa waad bilaaban kartaa waraysigayga waa dhammaystay ee adiga runtii ii sheeg oo keliya wakhtigan ha iga dhammayna midda koowaad qof wax soo baratay ayaa tahay oo weliba wax karada wakhtigan ha iga dhammayn waa inaad qirataa dembigaaga aniga dilaamay dilka adiga ayaa geystay waan ku baryaa iska keefasa gabadheed 3 maalmood lama kulmin waa ku baryaa iska keedaa dilka intii aadan geysan ka hor ayaa loo baahnaa inaad arrinkaas ka fiirsato kiiskan adiga waa ku wacad yahay qofka la dilay meydkiisa farahaaga ayaa laga dhex helay inta uusan dhiman ka horna labadiina gacanqaad ayaa idin dhex maray waa been waa run caddaymo fara badan ayaa laga hayaa caddaynta ugu weyna dhaawac gacantaada ku yaala waaye dhaawacan sidoo kuu soo gaaray mudana dhaawacan anigoo jikada ku jiro qudaar jarjaraayo soo gaaray war aamus adigoo qudaar jarjaraya haddii mindi ay ku jari lahayd faraha ayay kaa jari lahayd ee gacanta kaama jari lahayna dembigan qira waad gashaye qiro maya waa been aniga dilaamay xaqiiqdana waa arkaysaa runtaa waxay tahay qofka daacadda mar walba isagaa guulaysanaya runta keliya ma guulaysato ee mararka qaar waxaa macquul ah beenta xataa inay guulaysato muhiimaddana waa qofkii guusha ay raacdo innaga hadda waxaan hor taagannahay saldhigga hortiisa waxaan rabnaa inaan waraysi ka qaadno Shania Grover oo lagu soo eeday inay dil geysatay saldhigga markay ka soo baxdo kadibna waxaan su'aalaynaa dilkaas inuu yahay mid sax ah iyo mid qaldan wayna noo kala sheegi doontaa sidaan annaga filayno mudane taliyaha ku wuxuu soo bax ku salaam taliya sidee tahay jinaaya arrinka lagu soo eedeeyey maxaad ka dhihi kartaa ii sheeg aw taliyo runta haddii ku sheego janaaya horta ani iida dirisaan nahay dil ee geesita iska daayaan ku dhahay dadka diriskaa ka ammaan galeenaan ku dhahay qoftaas baari waay dad mala dagaasho dhibna maba jeclaan ku dhahay iyo dagaal oo dhan taa taliya janaaya sartii deganid ayaan waardiye ka ahay aniga tan kale marmarka qaar waxaan isku arki jirnay wiishka intaan saareen inay dad dulmise iska daaya indhaxun xataa ma ku soo fiiri jirin waxay leedahay qof aad iyo aad u wanaagsan mana ahayn qof dilaa ah waxayna u ekeedba qof iska masaakiin oo aad iyo aad u aamusan hadalkayga dhagaha keliya yuusan kaaga dhicin maskaxdaadana waa inaad ka qiimaysaa wakhtigana ha iga dilin dembigaaga iska qiro adiga mar walba su'aashaas ayaad i weydiinaysaa anigana waxaan kuugu jawaabayaa dilaamiya xaqiiqada jirtaana midaasa aamin ama aaminin war caddayntaan kuuga hayno maxaan ugu samaynaa noo sheeg bes ooyinta intaan ku ekay su'aal walba adiga lagu weydiiyana waxaa lagaga baahan yahay si saxan inaad uga jawaabto waa intaasoo keliya haddii aad naga xanaajisane wax badan ayaan kuga samayn karnaa waa shirqool qof ayaa anigii shirqoolay dembi aana gelina dushayga saaray waxaanoo dhan waa been aniga dilaamaya hadalkayga aamina waa idin barya aniga kama dambeeya arrintan waayahay dilkaas yaa ka dambeeyey adiga ninkaas cadowtinimo miyaa idinka dhexaysay may waxaad ii sheegtaa xiriirka adiga ninkaaga siduu yahay xiriirkeena wuu wanaagsanaa seexda dhaaf ayaan isku jeclayn waxna kalama qarsan jirin
तो हुआ है जरूर सैयारे 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 परिंदों से उड़ जाए हम सफर कि हम पे हुआ चाहतों का असर हाँ परिंदों से उड़ जाए हम सफर कि हम पे हुआ चाहतों का असर फलक से भी आगे कहीं हम चले बना ले वही अपनी चाहत का घर तेरे संग बह रहा है मेरी रूह का शिकारा जहाँ जन्नतें मिली है तू है वही किनारा अजब है खुमारी अजब है सुरूर मुझे कुछ ना कुछ तो हुआ है जरूर सैयारे 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 है ज़ाहिर भी तू मेरे अंदर भी तू मेरी ख्वाहिशों का समंदर भी तू जुबां पे तेरी बस तेरी बात है कि दामन में अब तेरी सौगात है मेरे हाथ की लकीरें तेरे नाम से जुड़ी है जब से मिला मुझे तू मेरी नींद तक उड़ी है अजब है खुमारी अजब है सुरूर मुझे कुछ ना कुछ तो हुआ है जरूर सैयारे 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 oo hadalladaadoo dhan waan ka helay caajis kalena waa iga baxay filimaanta oo keliya ayaa heesaha ka maqli jiray haddana qoftan ayaa habaasii keentay runtii mudane waxaad ba u malaysaa sanadahan dambe filimaanta la jilaya iyo dadka bini'aadanka noloshooda inay isku mid noqdeen okay qofkaas noloshiisa waaba ku faraxsaneed waa heesi jirteen waad baashaali jirteen laakiin hadda waxaan u baahanahay dilka muusigiisa ayaa lacanka saaray tali aniga waan kuu sheegay dilaamaahi xaqiiqada jirta ayaana midaas hadalkaygiina aamintii isku day wax kaloon kuu sheega ma aqaan mudane jilaanaha horta dilaay ma naqan karto aniga mininkaas waardiyan ka ahay weliba aniga ilaaliya keliya ma iyahe jaanjuus weynaan ahay aniga arrintan hadda baaritaan oo weynaa lagu hayaa ugu dambayntiin waxaa ka soo bixi doon gabartaasna dilaay ma aha aniga waxaan kuu sheegaa dilkaasna khaf kalaa ka dambeeyey sidaasna socota lii qofka xiga la kashmee macnaha magaceeyaa la kashmee la yidhaahdaa ee tii lacagtaha moodaya aniga waaba yaabanahayba qof daacad ayaan ahay daacad ayaana u shaqaystaa laakiin guri walba aad tago dad xun oo khiyaano badan ayaa la kulmaa lacagteedana ima siinayaan noloshaada iga sheekay kuma dhihin su-aalaan ku weydiiyey waa la gacan gale mudan iga raal noqo aniga waxlay kuu sharxay ma ogta mideeda kale gabadha janaay la yiraahdo waa gabar fiican muddo badana waa la soo shaqeeyay marka aniga inay wanaagsantahay oo kaliya ayaan ku hayaa ninkeeda xataa iyagoo isdagaalaya ma arkin aniga waa gabar baari ah maxaa yaal gabadha saas u wanaagsan ma noqon karta dilaa cunugteeda adiga xanaaninaysa soomaa haa si fiican mudan gabadhaas mar walba xafiiska aadayso cunugteeda aniga ayaa haa jira
waxaan u xanaanay jiray sida cunugteedoo kale. maxaa dhacay gabadhaada maxaad uga murgaysay mudana marka hore anig gabar ayaan dhalay markaasna aad ayaan ugu farxay sidaasay tahay mararka qaar aniga waan murugoon jiray gabadheeda si fiican uma xanaaneyn jirin waayo shaqo ayaan ku mashquulsanaa mararka qaar waxaan isdhihi jiray shaqada xitaa ka soo tag laakiin taas iima suurageli jirin sabab maxay kuugu suurtageli weysay dhaqaale xumo jirta darteed anigii ninkayga go'aan waxaan ku gaarnay maadaama gabar ay noo dhalatay guriga yara aan deganayn inaan ka gurno guri weyn aan degno lacaga deymaha ayaan qaadanay mushaarka markaan soo qaadano aan lacagta deynta qaar ka bixinin lacag yaraa noo soo hari jirtay maadaama Mumbai ay tahay magaalo aad u weyn lacagahaas yaroo noo soo haro waxaan ku qasbanaan jirnay in aan nolosheena ku maarayn inkastoo aysan nagu filnayn okay maadaama dhaqaale xumo idin haysatay go'aanka aad gaarteen muxuu ahaa ii sheeg xabiibi aniga waxaan ku fikiray maadaama guri weyn aan degannahay qayb haddaan kiraysana ka waran kira haa waan kiraysanaynaa sababtoo saaxiibaday deli ayay degan tahay guri weynay degan tahay qayb way kiraysa qaybna iyadaa degan anna waxaan ku fikiray qayb inaan noo kireeyo mideeda kale lakishmii maalmaha madaxadeeg ay keentay micnahayga labadeena shaqaan wada aadnaa gabadhan iskuulka ayay aadaa micnahayga waxaan ula jeedaa maadaama iyada kaligeed guriga looga tagaayo xoogaa qabyaan dareemoyaa ma la hubaa gabadha shaqaalada haddii aan iska bedelana waad og tahay Mumbai waa magaalo aad weyn sidaasay tahay way nagu adkaanay gabar shaqaala inaan helno marka sidaas darteed ayaan ugu fikiray gurigan dad wanaagsan in aan qayb ka dejino sidee kula tahay waa arrin wanaagsan laakiin mid samey gabar iskaabula diris iga dhig yaa iskaabula ma idhahda kaala duqaya naagna maba siicane bes may run ahaantii annaga noloshadaan u malaynayna maaha waa ay ka duwan guri inaad ka karaysay muxuma laakiin qaabkay ugu karaysay online ahaan ayaanu kariyey jarkaad halo shanaaya miya anna ayaa kula hadlaysa waan arka onlineka guri kira inaad soo gelisay wuuna anfacay waxaan rabaa inaan soo fiiriyo ma kugu imaan karaa meeshaas haa dhibaato mala waan kugu imaan karaa waayahay waad mahadsan tahay waan ku imaanaa haa laakiin mid ayaa jirta midaasoo ah arrintaas aniga waan ku lwalsanaa shalad guriga online gelisay isla markii kirista ma heshay haa gabar ayaa guriga fiirisay kadibna way ka heshay waxay dhahdaa waan soo degayaa waana imaanayaa 13 kun way ogashahay soo qiimo fiican maaha gabadhaas jarnikaar ayay deganayd filimada ayayna samayn jirtay xogaa familkeeda isku dhaceen sidaas darteed ayay ugu fikirtay inay halkan timaado horumar fiican ay ka samayso gurigeena ayayna soo degaysaa mid kalena waan kaa iloobay gabadhaas maalmaha qaar guriga ayay joogtaa annagana waa noo wanaagsan tahay sababtoo ah gabadheena ayay noo ilaalinay sababtoo ah lakshmi kaligeed guriga ma ilaalin karto dhib maa jiro adiga le soo ima dhihin gabar qurux badan oo iskaabalo guriga noo soo deji haa haddii aad ku qanacsan tahay aniguna waan ku qanacsana arrinkan waa soo dhaweynayaa beelaa tahay midaan kaa iloobay maanta iyada xoogaa shaqay leedahay haddana way isdiyaarinaysaa haya asxaabta waan sii baxay waaw maanta aad u qurux badan tahay mahadsanid nasiib wacan aan ku leeyahay waayahay baay baay
war afka naga geli duqa aw bariga caafimaadka waranba ma ii raysaa waa lagu raayaa waa lagu raayaa waa kaa qaada qalanjadan yeelo aad ii sheegay qalanjaha dhiina subagaan yeynoo eedda subagaan yoo la degaya mataqaana janaayaa ay dar isla tahay ayada in isla degayin mar dhaweyna soo tagto gurigaas raana il khanjira wax ma qaadayso daawooyinka ma qaadatido si u kuuras maxaa berina qof kuurtid martido waaya haddaan ka jeesanaa warkaale adiga warkeena maxaa u dhegaysanay soco igu qaraaraya ka tag waqti fiican ayay soo xusuus haddaan daawadayda soo saad qaadana wax u fiirisay maxay ahayd laakiin maxaad fiirinaysaana waxba gabar qurux badan aragta kadibna waa isku dhex yaacdaa miniid wax kaa galeen ha igu dhihin taas gabar kaa qurux badan miyaa dunidan saaran hadalka macaan waa mala marna dadkuu dilaa balse kan waa kii macaana yaaba ku heli kara gabadhayda maxaad cunaysaa waaye adiga daawooyinkayga intee dhigtay waxaad meel dhigtid maba la arkabo yaa way duqan qaylin duqa diriskeena waaye naagtiisa isku dhacan iyadoo ku qaybinaya xanuunay ahay kaale aawa alaabtaydi intee gelis soo bixi hadda alaabtan kuu dhiibtayaan ku dhahay alaabta intee kuu dhigani soo bixi soo bixiyaan ku dhahay maxaa iga fiirinay oo dhaawac ma ku soo gaaray keenba keen aan arkee itus keen maxaa u haystaa oo waxa maa dhaawace wax ka daran in lagu geysta ayaa istaayishaa odagan ma duran yahay ninkan xaafaddeena markuu soo degay xaaladda dabaqaan oo dhan way isbeddeshay maalin walbana sidaanuu xaaskiisa ugu qayliyaa wuuna garaaca ma aqaan sababto weli qababac ninkan ma kula soo galay maya laakiinse maxaa ula jeedaa gotom iska dhaaf yaaqi arrinkan muhiim maaha arrinkan waa muhiim ninkan kelmado xun ma ku yiri ii sheeg ha iga qarin maya wax saasa ma jiraan xoogaa indho kullo igu fiiriya mararka qaar geli gacanta gacantaada geliyaan ku dhahay waa ku baryaa war matalaadiga dhaafay geli gacanta maxaa u taaganta alaabta halkan ma ku jirto halkan ma ku jirtaa okay waxaa macquul inaan baabuurka uu soo tagay anaa raadsanaya okay shinaaya dagaal ma jiro ninkan waa dariiskeenna waxaan rabaa wax walba uu ku dhaho mid inaad iigu sheegto ha iga qarin gootam waa ku baryaa isdeji wax weyn ma jiraan ninkan waxaan ku dhahay ilkulla ayuu igu soo fiiriya aniga keligay xitaa maahan gabdhaha dhismahan degan oo dhan sidaasuu u fiiriyaa foolxumadaasoo dhan soo ku dhaqma shinaaya maxaad iiga qarisa ninkan sababtaan kaaga qari wax kalama buuqaanaan diiday iska dhaaf anaa shaqadiisa aqal midiyaan ku soo aruuriha gootam gootam waa ku baryaa istaag yaa qayb kaadi shinaaya gacanteeda siita waa ku baryaa gacanteeda mindida siita gootam dhig mindida ana cabsi fara badanaa dareemooya il badan ii kaala gabadheeda cabiya idhegayso sheekadaad oo keliya igaga sheekeen ee waxaad igaga sheekaysaa ninkaaga iyo gabadha guriga aad ka karaysa maxaa ka dhexeeyey waxba adigoo runtii ii sheegaya oo laalaab aadan warka ku darayn
gabadhaas sidee warbixintoo dhammaystiran haddaan ku siyaa ku dhahay qoftaas qurux horta waa loo dhameeyey atriishnimilek soo daadi ma ogyihi dhuuntaadaan ku dhahay katiinku ku xiran inaba caadi mayna ku dhahay qaaliis ahayaan ku dhahay annagoo gabadhaas arkaynaan ku dhahay inta dabaq mid shaqa aadi jirin ma lahaan ku dhahay qof walba waxaad jeclaa inaas arka leh aad lee ka dhinneed taliyo usaan wax kugu sheega ma aqaan gabartaas waxay ahayd gabarana inaba caadi ahayn tan kale dadka markaysan seerka soo korto waxaad u malaysaa say u fiiraayaan inay ayada maahena naag kale adduunyadaba jooginba ebadkay allahay ma arag naag lamida qurux soomaa qaybta quruxda aniga ka tumo xirukaadi haatali waan ku maqlaa waayahay okay adiga bannaankaygaa doorta wejigaaga ay dhibayso gabadha lagu magacaabo janaaya akhbaarteeda caalamka oo dhan ayay qabsatay bambay oo keliya maahan dalhi koonfurta dalka indiya tviyada oo dhan twitterka facebooka meel kasta ayada ayaa laga sheekaynaya dadkaasna waxa ay leeyihiin cadaalad ayay u baahan tahay shacabka oo dhan waxay leeyihiin gabadhaas dembi ma lahan isbatooraha hadalkiisa markii aan dhegaysanayna waxay ogtahay dembiganu dusha ka saaraay haataliya inkaar qaba sidee wax u socdaan saldhigga aad joogtaanse maxaad idinka ku haysaan gabadhan la leeyahay dil bay geysatay horta gabadha dilka ma geysatay saxaafadda oo dhan annaga ayayna eedaynaysaa sharaf dhacna waa ay noo tahay aniga gaashaanlaha ay soo wacay waxaana uu leeyahay sidee wax socdaan gabadha dilka ma geysatay horta annaga baaritaanka hadda wuxuu noo marayaa jinaayaha faraheeda ayaan waxaa ka helnay qofka la dilay hubka dilka lagu geystay mee marka ilaa hadda gacan kuma hayno baaritaan ayaan wadnaa aniga waxay ila tahay hubka dilaaga uu wax ku dilay inuu meel ku qariyey war waa maxay doqonnimada aad ku hadlayso waxaad leedahay farihii ayaan gacanta ku soo dhigay hubka dilka lagu geystana ma haya ayaad leedahay waayahay farahan aad sheegaysid maxkamadda ma la hortagi karnaa dhaawacan yare gacanta ka soo gaarayna markhaati kuuma noqdaniyo shaqaan kuu dirsaday ee shaqadaada qabso caddayn cad ayaan kaa rabaa oo gabadhaas maxkamadda lagu geyn karo shaqadan ha ku ciyaarin ayaan ku idhi 24 saacadood ayaan muddo ku siinayaa 24 saacadood caddaymo ayaan kaa rabaa gabadhaas ama waxay noqonaysaa qof dilka geystay ama waxay noqonaysaa qof aan dembiga geysan annaga gabadha meesha kuma sii hayn karno saxaafadoo dhanna waa ay kacsan tahay kiiska iga soo afjar waaya tali wax ma soo ogaateen tali maya markan baaris sameeyey dadku waxay sheegeen gabadhan dilkan inay geysan taliya qoftan xaaladdeeda way daran tahay xalay ilaa hadda waxba maysan cunin meeshaanna ma ku sii hayn karno intaan ka badan haddii ay dembiga geysatane waxay ila tahay qoftan inay qirale sababtoo indhaheeda waxaan ka arkaa daacadnimo fara badan mana u malaynayo dembigan inay geysatay ra'yi ahaanteedaan ka hadlay sidee ku caddayn kartaa markii idinla soo degtay kadib maxaa dhacay wax waliba si wanaagsan ayay noogu socdeen ninkaygana la'aantiisa ma noolaan karin balse wax walba lakshmi lakshmi maxaa ku dhacay lakshmi gabadhaas imaasheeda kuma faraxsaneen maanta akhbaarta joornaalka lagu soo qoray ma aragtaa dadkana waa ka yaaba wax walba iska soo qorayaan gabadhayna way faraxsan tahay maalmahana guriga qabyada xitaa way ka yaraatay ma la hubo arrin wanaagsan waay yaa heli kara aabbaha gurigaad soo furay sug waaya haye dhib ma jira may dhib ma jiro madaxdaa warqadan iisoo dhihi waxa siir gootam u dhiiban halkaad igu sugya fiir wax yar waxaa la iska rabaa gabarta oo guriga degan inay saldhig ay tagto oo ribood ay samaysato kabacdi guriga waa day kartaa gabadhayda bal ka waran milkiilaha guriga warqad soo qoray warqadana waxay ka socotaa dowladda hoose bal waa sii gudagelaynaa warqadana waxaa ku xusan gabadhan dariskana laah inay saldhiga tagto oo baaritaan ay soo marto wax waliba si wanaagsan ayay ku socdeen gabadha saldhigga booliiska way tagtay ogolaashana waa la soo siiyey mahadsanid kadib aniga shaqada ayaan ku mashquulay hoolihiina way igu farabateen mar walba waxaan sii jiray maanta guriga waa ina dhaqsi tagtaa sidaasay taa waan sii daahi jiray mararka qaar waxaa dhici jirta habeen inay igu noqoto ilan shaqadeeda ayaaba sidaas ahayd goota mararka qaar gurigu wuu iigu hormari jiray haddii uu iga soo hormaro mararka qaar
isagii ahaana way sheekaysan jireen mararka qaar waxaa macquul ahayd shaqada inaan waqti hore ka soo baxo marka ay sidaas dhacdo anagoo dhan waan israaci jirnay cashaan wada tegi jirnay xitaa guriga markaan joogno sida famil oo kale waan wada ciyaari jirnay waxaan isdhihi jiray gabadhan ma ahan qof kugu cusub ee hore ayaad isku taqaaniin ahaanaa waxay ahayd gabar aad iyo aad u furfuran mar walba waynala kaftami jirtay waynala baashaali jirtay hal familna waan wada ahayn xitaa weligay kama shakin isma dhihin gabadhan amay dhibaato kuu keentaa oo ay reerkaaga kaa burburisaa ahaanaa mar walba ay barnaamij leedahay annagana waan raaci jirnay waxayna noo haysata familkeedoo kale inaan nahay aad ayaan isugu soo war dhawaa adiga waxbaa ku fikirin inaad jiifato arrintan familkeyga ayay qusaysaa gabadhaanna familkeyga ayay ka mid tahay wax kalena ma jiraan arrinta dilka iyo ninkaas sheekadiis baa liga dhig ee waxaan rabaa inaan ogaado ninkaaga iyo naagtaas wixii ka dhexeeyey mudane run ahaanta ninkaas nin wanaagsan ma ahayn qof walba hadalsan kula hadla isaga hadal xun ayuu uga bedeli jiray mar walba arkana wuu qaylo jiray run waaye marmarka qaar gabartaas baawur weyn aa u imaan jiri waxay kala ahaayeen BMW iyo Mercedes ay kala ahaayeen aniga waa ka shaki gabartaas qorsho ay damacsaneed sidaas la soc mudan sheekada iga xir wax damban ma laga yaabo inaan ku weydiiyo sawirka soo ma haysid kan soo maanta le waa isla isaga ninkaaga iyo naagtaas haddii wase wax ka dhexayn sawirkan muxuu yahay ii jawaab ilinta beenta jooji anaka xadeemo badan waan haysanaa xaqiiqada jirtana afkaaga ayaan ugu baahannahay wax walba runtaa sheeg hadalnaya dhaqso markii igu horeysa arrimahaas aniga aan ogaad waan ka naxay waana ka walwalay maxaad raadinaysaa marwo aniga halkan waxaan u imid inaan kula hadlo adigana waad iga cararaysaa marka hore waxaa loo baahan yahay ninkaada iyo naagtaas wax ka dhexeeya inaad ogaatid xanaaqa faraha badanna caafimaadka uma roona dirisnimadaada ku ekow ninkayga waxba kama sheegi karta hadalkayga ma fahantay maxaa dhacay bini aadan maaho runta maan qarinaynaa subaxdii shaqada hortaada ayuu baxaa hortaadana wuu yimaadaa si uu fursad u helo yaa awood kuu sii midaas awoodda meel loo dhig adiga waxaad qalad samaysay naagtaas markaad guriga ka ijaaratay waayo naagtaas waxay soo dhigatay reerkaada inay burburiso aniga waan la socdaa wax walba waana kuu sheegay hadalladaada qaab ka daran waqti aan ku dhagaysta aniga ma hayo arrinkan caddeen ma haysataa caddeenle maa tiri anigaa ku haya caddeen laakiin waxaan rabaa marka hore inaad iqanciso kadib waad helaysaa caddeyntii keen kadib ila hadal war adigii dhegayso raana caddeen la'aan maba hadlabo caddeen le soo maaha anaad iga taqaanaa waa ku keena wax haddayna ma kuu keenay ninkaas may wax caddeen oo ii keenay ninkaas ma jira balse labadood fiideo ayuu ka duubay gabar fiican ayaa tahay ninkaas masaje ayuu ku soo diri jiray maxaad u fiiri weeday ii sheekay maad hadashid hadal su-aasha sax uga jawaab dartiib anigaa kuu sheega waa hadlaya dartiib bala gacanta ninkaas waxay igu dhahay caddeynta waan ku siinaya balse intaanan ku siinin karo waxaan kaa rabaa wuxuu rabay ninkaas aniga inuu ila socda ayuu raba waa doqon weliba baastara dhegeensa afartaas qofood guryahooda ha aadaan waayahay tani ilaa hadda waxaynu hor taagannahay saldhigga hortiisa isbatoorina
wax caddayna uu soo saaray haba yaraatee ma jirta baaritaankii waa uu socdaa natiijada ayaa la sugayaa saxaafadoo dhan meesha ayay ku sugan tahay warbixintana waa idinla wadaagi doonaa kiiskan wuu iska cad yahay wax walbana waan ogaanay uma baahna baaritaan dheerad inaan samayno dembiilahana sidan ayaanba gacanta ugu dhigay bal ninkaan fiiri arxandarrada aad u dishay wax kalena umaadan dilin ulajeeddadaada ugu weyn ayaa waxay ahayd sumcaddaada iyo sharaftaada adoo ilaalsanaya ayaa ninkaan u dishay wax walbana gacanta ayaan ku hayaa adigana ii nasaya askari gudaha ii fasax waryaa fiiri gudaha ma galaysid yaa dabla idihiisoo gudaha raba maya gudaha ma lagu ogola seeba yaa khay waryaaqay warkayga fahan gudahaan raba xaaskaygaan raba inaan la soo yaa khay gudaha ma galaysid yaaqay adi ma ii fahanti maya ma galaysid waryaaqay fahanno ab andar ninkaan siduu gudaha u soo galay kudsinahi waryaa yaase u soo fasaxay tali xoogas ku soo galaya meeshaan anna waa celinoya tali ninkaan luuqadiisa ma fahmaya xaaskayga xalaala ahayd dilaa ma aha waa ku baryaha lay soo daayay haddiiba xaaskaaga dilka aysan geysan waayahay aqoon miyaad u leedahay qofka dilka geystay qofka dilaaga waan aqaanaa yuu yahay dilaaga waa aniga ninkaasi aniga iyo anaaya iyo muuqaal naga duubo waan cabsana waxaan sirin muuqaalka ama bannaan ku baxa saasaana ku dilin daawadayaal warbixin aynu ka soo aroorina shacabweynaha reer indiya warbixintaasi waxay sheegaysaa oo ay leedahay boqolkiiba 80 shacabku waxay yidhahdeen jinaaya wax dila ma aysan geysan halka boqolkiiba 20 ay ka shakisan yihiin dilka inay geysatay iyo inaysan geysanin oo weli lagu muransan yahay hay marwo hadda way caddahay adeeg wax dambe inaadan lahayn hadalkaaga waa sax dilka adiga ma geysan ee gootam ayaa geystay ya gootam maaraanaa dil maya taas waa been waa run dembigan asaga ayaa afkiis ka caddaystay intaasoo keli ma ahan wuxuu kaloo caddeeyey asaga iyo gabadhaas inuu xiriir ka dhexeeyey raanaana wuxuu u dilay video ayuu ka hayay isbatooro waa beentiis gootam ninkaas ma uusan dilin sinaaya waa runtay gootam dembi aadan lahayn dushaa iska saarin ayaan ku dhaha hadalkayga si fiican u dhegayso sinaaya ninkaas nigaa dil been ayaad sheegaysaa gootam sinaaya been kuma sheegaya ninkaas nigaa dil dembigaan adiga ma geli kartid bravo waan ka helay fariisa sinaaya adiga waxaad noo caddaysay dilka ninkaa inuusan geysan laakiin waad og tahay dilka qofka geystay waan aqaanaa qofka dilaaga ah yuu yahay dilaaga dhabta ah qofka dilaaga soo marika waa aniga raanaha maxaad u dishay sababtaan u dilina wax kale maa ninkaas markuu fiidii weytus aniga waan xanaaqa kadibna waan dila dilaaga waa aniga aniga ayaa dilay anigaa dilay aniga waa dilaaga waan ka helay si wanaagsan ayaa uga helay hal qof ayaa la dilay dilkaasna 2 qofood ayaa ka dambeeyaan arrintaa waa inaan nusanaa adiga waad qarsan tahay soo maha ananiya iyo adiga inuu xiriir fiican iga dhexeeyey xiriirka qaar wuxuu ku salaysan yahay jawi degan iyo aamusnaan aniga iyo anaayana dadkan isaga dhoweyn waana isu heysi jirnay xiriirkiina noocaddaas ayuu ahaa taliye maalinba maalinta ka dambaysa anaya waan u sii dhaqaaqii wuxuu dhalay inaan jeclaado oo daqiiqad qura xataa aan ka ahaan waayo shinaayo anigu daacaddu maanan ahayn बर्फ से तू पिघल जा सर्दी की सर्द रातों में
बर्फ से तू पिघल जा सर्दी की सर्द रातों में मैं तुझ में जी रहा हूँ बस तू है मेरे रातों में बर्फ से तू पिघल जा सर्दी की सर्द रातों में मैं तुझ में जी रहा हूँ बस तू है मेरे रातों में हाँ कर रही है तेरी मोहब्बत जिंदगी में मेरी शिरकत इश्क में अपने भिगा दे ख्वाहिशों की कर दे बरकत हाँ कर रही है तेरी मोहब्बत जिंदगी में मेरी शिरकत इश्क में अपने भिगा दे ख्वाहिशों की कर दे बरकत बेपना तेरे इश्क में गया हूँ मैं जान से रिवाजों से दूर होके हो गया तेरा मैं ईमान से तू गुनगुनी रात है तू गुनगुनी है सुबह बंदिशों से मेरी मुझे आ कर दे रिहा तू मुझे दे भी दे जीने की वजह बर्फ से तू पिघल जा सर्दी की सर्द रातों में मैं तुझ में जी रहा हूँ बस तू है मेरे रातों में gootan hawada sare ayaan ku socdaa waxaan ka baqaa dartaa inaan waasho aan ku soconno muxamed laakiin waxaan samaynaynaa xoogaa soo maqal danacsiga जरा जरा रूह का मेरी निखर गया तू लाज़मी हर पल में है सुन ले मेरी इल्तिजा हर भरम अब हो गया तेरा मेरा फलसफा तू मुझे दे भी दे जीने की वजह बर्फ से तू पिघल जा सर्दी की सर्द रातों में मैं तुझ में जी रहा हूँ बस तू है मेरे रातों में maxaad samaynaysaa waxne kaale halkeed socotaa waxaad samaynaysa inaan halkaan u baahanay maad itustid marka waxaan samaynaa shaqa ma ku leedahay orod gudaha galaan ku dhahay yaqiin inaan halkaan u baahanay soo kuma limaad ii dhiib inaa aragti ma arkaa ma arkaysaa okay waaya kaale arag marabtaa inaa arag war igama baxsanaysa inaan arko waa miim waanan arkaya okay okay waa arkaysaa ma arkaysaa haddaan ku tusinaa waa kasalka waaya kaale maadaysid warda hello abaayada ii waranhay waan fiicanahay walaal fiicnaan kaama dareemooye runtii ii sheeg hadda waan mashquulsanahay markaan mashquul ka waa mashquulsanaya halo abaayo walaashay ya iseelata waxbaa jiro ukaadi xaggee u cararaysaa adiga dhibka ku haysta muxuu yahay aniga waa dheefaysanahay adiga dhibkaada ayaan haayaa
inaan ku tusiya ayaan rabaaye diyaar ma u tahay haa waa kane waa arag fiirsee fiiri hadda bursamiintada oo keliya ayaad aragtay filimkoo dhammaystiran aniga ayaa kuu haaya ujeedkaagu muxuu yahay ulajeeddadayda wax sidaas u sii fog ma ahin dheesha meeshaan ka dhacday aniga waa ka hela ma ogtahay dheeshaasoo kale aan anigana rabi haddii aad diidid twitterka iyo meel kastaad ka arkaysaa ma intaana baqdi weynaad gelisa ka waran okay waaye aman ku dhajiya anad ii dharbaaxaysaa miya yaaqay dharbaxshadan way kugu yar tahay ka badan ballan waa kuugu celinaa teeda kaleetad adiga kilibkan aad duubtay ma waxay kula noqotay aniga inuu cajabiyo hd ma ahan mana ka helin war kilib markii aad duubaysid waxaa loo baahan yahay kilibkaas inuu yahay mid hd ah shacabkana ay ka helayaan balse looma baahna kilib dadka aad ka duubtay wejigooda si saafiya aana loo arkayn asxan haddii aad wax duubaysid wax fiicana la duubtaa marka xige aad kilib duubaysidna isoo wargeli sida aan kugu diyaariyo meel ifteena kadibna waa ku qurux badnaanaya kilibkaaga la soco adiga hadalkayga ma fahantay muuqaalkaaga marka la fiiriyo dadka waxay kuu muudaan inaad tahay nin caqli badan balse caqliga waad ka lidataa anigaa kaa caqli badan wejigaygana dambe haymaan haddaba waan kuu digay raana wejigiisa dhabta haddaad arkaysaa ananiya wiilkii ay raacday yuu ahaan ii sheeg ninkaas waa saaxiibkeed waanan ogaa inay wax isla wadaan saasay tahayna mararka qaar waxaa jira dagaal hoosaad iyo dagaal markaasi maskaxiyana anigana waxaan isticmaalay dagaalka iyo gaagka ahaa wuxuuna noqday kan maskaxda taasaana ii bannaanay muhiimadda oo keliya ka hadal taliya dhakacdhakacii dhubuqdhubuuqba aniga dheel baan u aqaanaa gabadhaas waxay rabtay inaan isguursanno laakiin aniga iyada imaysan qancin waayo gabadhaas dhaqankeeda aad u xumaa dabeecaddeedana onkolofaatan ku dhahay tan kale dadka way iska aaminaysaa farxaday dadka siinaysaa qamrina waa u dheera qofta qof saasoo kalea ma dhaqmaysa marka sideense aniga ku guursada dhaqamadaasaan ku nacay saasay tahay xidhiirkeenna waa u wanaagsanaa laakiin la kulanka raanaa balaayadan ugama horrayn هلا هلا قعلك ninkan mistaqani fanni waayaan ku dheh maanta uu iga qosolsiiy waxa wanaagsan adigana inaad isbartaan isigoo kaaga qosolsiiyo hadda leen ogaada gurigan inuu degan yahay waad ku mahadsan tahay ammaanta aad i ammaantay waa mahadsantahay adiga kaale adiga intaan kugu arkay horta xaafadaha maad degan tahay laakiin amay dhib ma leh waa isla degannahay diriska leen ahay haye gacalka ma socno isoo kor baabuurka hal daqiiqano خذ راحتك waanba ogaa aniga inaad isoo wacaysid dadka qaar dhiiggooda waa kulul yahay waxaa loo baahan yahay in la qaboojiyo diyaar ayaan ahay
hoo waa ogahay laakiin marka hore inaad is adkaysid ma ahayn adiga waxaad igu tiri muuqaalkaada ima cajibin ejiina maahan laakiin saaxiibkaada haddii aan tusiyo muuqaalkan hore ayuu kaa fahmayaa maxaad samayn kartaa marka ma ka fikirta horta waxa adiga kuu dambayn doono iyo khasaarada kugu dhacaysa intaba birito taleefonkayga oo keliya ayaad sugaysaa haa raanaa waxaad ogaataa inuu carruur ahayn yow gaclis wasaab gootam raanaa wuxuu igu cagjuglay saaxiibka iyo xaaskaaga inuu tusaayo caddeynta waan ku baryaa inta aysan taas dhicin waxaan kaaga baahanay adiga inaad ka gaartid haddii kale ninkaas wax walba uu ku ciyaaraya mana rabo inay arrintaas dhacdo waan ku baryaa gootam wax sameey arrintaana ka gaar sababta waddadaada aad ugu leexisay maxay tahay haddii aad rabto nolol xore inaad ku noolaato waxaa loo baahan yahay waxyaabaha nafsadaada caqabadda ku ah inaad ka hor leexiso ninkaas raanana wax kale ma uusan fahmayn dantu waxay nagu qasabta marka inaan waddadeena ka hor leexinno dil maa uga leexinaya haa nin kartile ayaa tahaya haddana aniya aawe magaalada ayay joogtaa oo saaxiibkeeda ayaa magaalada guri kale ka dejiyey gurigaygana way ka guurta markaas anigu waan rabay xiriirkeeda inaan jiro laakiin waxaan sameeyaa waa wax qornaa tan kale waqti walba waxaan ka fikirsanaa xaaskayga haddii xiriirkan ogaato waxa ii dambaynayo ayadana wax u dambaynaya waan isku daya dhowr jeer inaan qariyo waan ka helay balse kaama filayn sidaan inaad samaynaysid maxaad sidaan u samaynaysaa beentaada waa la ogaaday been ah haa waxaana caddaatay dilaaga inaadan adiga ahayn been kuma sheegaya aniga runta ayaan kaala hadlaa riboodka waxaa ku xusan 12 Disembar dilka raanaa inuu dhacay weliba 2 saac ilaa 4 saac habeenimo inta u dhaxaysa adigana gurigiisa iska daayay kaaga xataa ma aadan joogin waqtigaas xaggeen ku sugnaa haye taasna aniga baa kuu sheegaya xasuusta ayaa kaa dhuntay aan u malaynaa laakiin hadda ayaan ku soo xasuusinaa xilligaas adiga xafiiskaaga ayaad joogtay waxaadna ku jirtay shir aad iyo aad muhiim u ah maamulkaaga ayaa go'aan qaadan rabay sidaas darteed ayaa shirka kuugu dheeraaday laakiin macluumaadkan oo dhan see ku ogaatay yaase warbixintan kuu keenay goobtaada shaqada CC kaamirada ku xiran waxa ay dubtay dhan annaga ayaa gacanta ku hayna muuqaaladaasna waxay caddaynayaan raanaa dilkiisa adiga inaadan ka dambaynin hal waqtina laba meel ma wada joogi kartid haye kotam hadalkayga soo sax maaha iga raali noqo xaaskaaga inaad badbaadiso adiga waad ku guuldaraysatay marka aadaan uga xumahay qofkan iga kaxee soo istaag intee oo micnahaada hadda waxaad ula jeeddaa haddii aniga aanan dilaaga ahayn maxaaskayga dilaaga ah seese wax u wadda adiga mudane gotham hadda inaad dembi lahayn ayaa caddaatay qof kasta ayuu noqon karaa dembiilaha haddana waad bixi kartaa isoo raaca dhedheemantaydi waan keenay quraacdi sustag kaale waxaa la cunaha layidhi kaale aabe soomaalitiis quraac isbishal lee karahan ku keenay adaa cunaa si fiican u fiiri wiifo waan ku saaraa magaalkan ku soo wareejaha adile ismaamul adeegaan ku dhahay haa diriskaa warramo iska dhaf cunhe aabo ma ku jecliyo gabadheedii abaabo kan iga dhaafno aabbo wax kalema iga dalbane waa ku samaynaa shaka kuma jira ii sheeg habartee rawaani habartii ku dhashaya gabadhayda hooyada
waa la keenaa goormee imaahehe babo ee shaqada markay soo dhammayso sooma imaanayso xoogaa shaqa ku cakirin babo ani waxaa maqli moogtahay dadka daraska waxay dhaheen hawartaa xabsiye ku jirta waxa ka jira warkii may kugu darteen gabadheydii waxaas waa been hooyadaa shaqay ku mashquulsantaa ciidanka ilaa iyo haatan wax caddayna kumaysan helin tali waqtiga aad buu noogu yaray haddaysan janaayaa dilkan geysan yaa way qofka dilkan geystay ilaa iyo haddana aanan gacan ku soo dhigin tali kolle dadka agagaarkaas degan dembilaha kama foga tali janaayaa guriga ay degneed waa kana waa dhismahan ay taliyaa imaade oksalaam tali waa kaa qaaday qof walba gurigan gale ma diiwaangeli jirtay ها تلي وحول بني وان قرا دتك غوري ديغان دن ليسكود اني وهايا اوكي بوغ ديوان غلتي كان وايا او سوغيا saddex tobanka December waa maalinta uu dilka dhacay 12 galabnimo wixii ka dambeeyay waxa imaada hal qof oo boostaal ah qofkaasna baawur ayuu watay alaab ayuu keenay kadib dabaq uu ka degay wax kala ma aragno atali warkeeda sax waaye 5 daqiiqo asguda asgali waana ka soo baxay ma hubtaa ha وهو عياوس بحيا طبعا سي سي كاميرا مكو حرين yahay mise ha xafiiska qaybtiis dambe ay ku tahay xafiiska si si kaamirada ayaan rabaa inay geyso waayay si fiican u fiiriya iskuna daya qofka uu yahay inaad aqoonsataan ninkan aqoon ma lihi wejigiisa ma arkayse waa ya mudane أخوان ولي أنا نكان ولي وجهي فين حتى كم داون اللي ما نعرف تلي وحير السقبة وحير الأكتاي لينك ديلك جيستنا نكان عسياي استاغ يا كوداي مدن إي آمن كوداي أنا وحنا ما أوجي وحنا ما سمعنا ما حد يآمن لا هذا لك اسمي ما ديقا ما حد توسك قبنيسي gabadheeda oo inaas hoos in la keen aniga sidaas oo keen ha laakiin aniga soo kuma dhigin korfuul mudan wax kale maan aniga waan cabsado markaan arko booliska inay soo socdaan arrimaha marwadana baaris ku sameyn rabaan telefoonka tus qofkan aqoon ma leedahay may mudan abadkii ma arkin aniga arrimaha raana wax iga sheeg ninka xun weliga ma arkin maxaa yeelay dadka dabaqan degan dhan way ka ersheegteen calashaan shaxaari waayna ninkaas ma fiicna aniga akhbaar intaas leeyahay ka dheh hadan bixi karaan معناها هولا إيطالنا أرد صباح صور كان حفيزك وأنا دوقت بسان أوكي تلي أي دي كان هكهربنا وانكو فهمي تلي sheekadu waa isbedeshay jinaayana ilaa hadda wax cadayna oo kiiskana laguma hayo booliskuna waa ay wareersan yihiin saldhigana waa ay ku jirtaa cadaaladna waa ay sugaysaa wix warbixinana dib ayaad ka ogaan doontaan wixii TV-ga isha waa inay ku hayaan دكتور faraha baaritaan markaa aad ku samaysay shinaaya inay tahay ma ii hubtaa haa tali waa kaa hubaa waa kuwan kaale si fiican u fiiri bal waa hubaan ku dhah baaritaanka markaan ku celiyo faraha janaayaa mugi fara kale iima soo baxayaan meesha waxaa ka tagay raanaha xaaskiisa iyo seedigiisa
janaaya iraana inay isdagaaleen baaritaanka ayaan ka ogaanay oo faraha ayaa noo cadeeyey janaaya gacanteeda dhaawac ayaa ku yaal dhaawacaasna annaga wuxuu noo sahlay inaan caddeemo fara badan gacanta aan ku dhigno maadaama faraheeda aan ka helnay khasab maaha dilka inay iyada geysatay dilaaga dhabtaa waxaan ogaa karnaa markii aan helno hubka dilka lagu geystay waa saxantaa taliya taliya waa inaan xoogga saarnaa sidaa ula kulmi lahayn raanaas siina ninka lagu gootam telefoon igu dir weydii nambarkan aniyaa waaya taliya hay-adii doore mahadsanid adigaa mudan halow adiga waaya taliya teleefonka anaa wuu dansaya marar badan ayaan ku celceliyey ananiya saaxiibkeeda akhbaar ma laga hayaa saaxiibkeed aniga akhbaarka ma hayo laakiin waxa warbixin igu soo gaartay kabtan kofe mar walba inay tegi jireen oo halkaas ay ka cabi jireen kafe meesha aan tagno ananiya saaxiibkeeda halka ma imaan jiray haa wuu imaan jiray mar walba ayuu meesha imaan jiray laakiin muddo 2 maalmood aniga meeshan kuma arkin waxaad ii sheegtaa lacagta qaabka uu ku bixi jiray kaarka lacagta ma yahaa mise kaash asiga lacagta kaash oo keliya ayuu ku bixin jiray waxaana maqlay ganacsi inuu ahaan jiray oo ah import export wax kaloo akhbaar kama hayo ninkaas okay hadduu yimaado isoo wargeli way taliya mahadsanid koonfurta bombay waxaan ka la'nahay ananiya iyo saaxiibkeeda idhegayso haa taliya raanaa xaaskiisa iyo walaalkeeda waa inaad saldhig iigu keentaa ka baqantaas halkan maxaad ii keenteen maxaan se idinka sameeyey maad hadashaan askartiina waxaad ii sheegtaan aniga aqoon may leedihiin waa lagu kasaade ko aan codkiisa maqlimatiido waa lagu kasaa keliyaad ku dhegan tahay haddii aan ku aftiri aniga waxaan ku jiraa xisbiga lagu magacaabo raaj waad fahanti soo ma walaalkaa iga xirwariya adiga iyo walaalka ayaad waxaad isku baysateen inaad raanaa dishaan kadibna aad dhuumataan hadalkayga soo sax maaha maya taliya aniga sideen ku dilaa waa ninkayga oo anagaa maalin walba wuu i garaaci jiray wuxuu doono wuu igu samayn jiray balse waan u dulqaadan jiray waxna kuma aanan samaynin si walba u ahaado ama si walba u xumaada ninkayga ayuu ah intuusan dhiman koor labadiina dagaal ayaa idin dhex maray kadibna guriga waad ka tagtay haa taliya labadeena waan isdagaalna balse aniga guriga ayaan ka tagay ninkaygana ma dilin habeenkaas maxaa dhacay hay muuqaal ka war beelle ma ahano beelle ma ahayn miya ma ku cajibinin miya si fiican u fiiri haa anaa ku tusinaa kaale horta isoo raacba soo soco ani wax buu ku yeelaaye soo soco tartiibkaada iswaalin kaale adiga war maba ku gala miya maxaad warkaygu maqli la'dahay mar kastaan kula hadlaa fiideoga ma ku qancin miyaa aragtidiisa kaalay qamradii aad ka ganacsanaysa way ku anfici weysa sooma waxyaalahan aad bilowda inaad ka ganacsato yah aniga ma saas leedahay kaalay anigaad afaareyga soo gashay soo maaha anaa ku aqaana shaqadaada in lagu canaanta waaye weliba canaan xanuun badan inaan ku kaale wariga maxaa kaa khaldan adiga mase la socotaa marar badan aniga inaan kugu xishmeey ninkan waa saydiga meeshaan haryaan maana ee waa bombay bombayna anaga ayaa ka talino waan ku dilaan kula ma iga badbaadaysid markaan waad ka badbaadaysid sooma waa ku xukuma iska jir aniga gacanaha ii qaadin mombayda aad ku faanaysa anaa ku tusinaa shaqadeeda maxay dhahday maxaad igu bootaysa mombay maad i dhahday haddaan ku warnasiida kaale ma waxaa isku dayda walaashay inaad gacan u qaado anina fartaan ku dhaqaajina wada baalootanka aniga wada baaloota kaale adiga sidee ugu fikirtay walaashay inaad gacan u qaado kaligeed baad u malaysaa waxaad la socotaa mar kale haddii aad isku daydo walaashay
إيه الحين إنها تكون في رسي هذا walaal waan ku لحبة لحبة أنكو غرا لحبة ولا شيء دين عمر هذه ما أنت سوما waan ku baryaa بايدن نكان يقول سيدا حكمه سيدا walaal sameynay sidaan gacan ku dhig la noqonin مشكلة إيلوبين لباح بومباي لباح بومباي وأنا هذيك وكان لباح من خكره يعني كو حكومين اسكو شكرا يا walaal soo baxo ku baryaa orod kaxayso haddii aad weelaysneen aniga fiican anigay madaxa iga galayaan mambay kuyo oo mambay ma igu faana aniga doqondhe kadib aniga guriga waan ka soo tagay oo wixii dhacana war uma haayo intaasoo keliya ayaan ogaay ولا سيدا هذيك واي سوما نيك هالكان يوير ما صلا سعتانيك لباح بومباي أنا ولا شيء ما جاك نسيت هذيك نسيت باتاتني يا أمس ما صلا سعت هال تلفون ورجي لما نسين حبسينا تكون متيسكرتان ما صلا سعتي صليك أنا أنا أخون سنة وحنا لباح بومباي يقال لي dhankayaad naga dhigaysaa soo maa taliyo waxay ka walax tahay waa kana dhanka hadda anigaaba ka dhigay haya askari siyaasigan waa ina tusisaa awoodda ciidanka ay leeyihiin لباح بومباي تكون شيء صمت وسخ حل لباح الكب مكوك يلا افكي لباح لباح سنة ولا سنة ملا وسخ برملي ها بس كده كجوجي صباح صاصعه dharka booliska aniga ma xirto laakiin awooddeeda gudaha ayaan ku wataa raana adiga soo ma dilin يا ماي تصلي أنيق مدلين حقا حاجة جوكليلة بس sidee ku caddayn kartaa dilkaas adiga inaad dhegaysan caddayn maysaa يا أها عدين بوحدان وهيستوي الوحوة maxaa waay habeenkaas xafladda yani janduugaran jooga meeshana ka shidna haatade halo هاتلي أخبار في عين كوهيا soo hadal روبن بارك يوجوغا waayahay yuusan kaa tegin annagana waan ku imaanaynaa tali akhbaar waxay kusoo gartay roben meesha inuu tegey وريستك كلها وتولوا كيمان كالي مقال الجوك واحد سكر يا بابورك كوريسا الاسكرباي
askari dhegayso adiguna wax i weydiinin misna saldhigga inada keenta qalad ayay kugu eed midaas saldhigga booliska iyo isbitaalka qofka markiisa laguma geeyo mar haddii la geeyana inuu ka soo bixi doono in kale lama sheegi karo maxaa sameey waayihii dil ayaa geysatay raana ayaa dishay maxaad ku hadlaysaa ninkaas sababta u dilaya maxay tahay ananiya madaxeeda ayaa u dishay yaad ka hadlaysaa war soo istaaqayaan oliyow marka hore gabar ayaa jacanbeela la jishay markii ay baxday kadibna xusuusta ayaa kaa lunti soo maha sheeg waryaa ii sheeg tali waa kuu sheegaa wax irka waa kuu sheegaa barmali waa markii ugu horreysay oon arko qof isbitaal inta aan la geynin ka hor saldhigga uu ku caafimaado la yaab soomaan tali laakiin hal codsi aa wata saliya codsiga wax kalma hadal keliya waxaan kaa rabaa warbaahinta inaadan u sheegin gabadhaasi aniga wax inay naga dhexeeyeen sabab inay qof xun tahay ayaan ogaaday markaas kadibna dad ayaan u diray si arrimeeda igu soo dabadiray haa ninkaas wuu jiraa wuxuuna degan yahay kalaba magaciisuna waa albert wuxuuna ii keenay caddeemo ku saabsan annaa ii gootan taliya albert qofkan soo maha haa asi naftirkiisa waay caad igama saar tali taas waxay la micno noqonaysaa ninkan inuusan dilaaga xitaa ahayn tali akhbaar ayaana soo gaartay taasoo albert teleefankiisa inuu daaray wuxuuna ku sugay alaabiir waa inuu aadnaa tali dhankan يا صصح يهرقبو يهرقبو يا تلفكن انت كنتيش dhaqso wuu bar yar yahay xataa ma dhahay bartadan ku dhiga dhaqso ur hadal jasiiradda madaala gurigooriya laga soo qaaday ma taleefankaasi waay ana qalad magidi waa kana guriga waa imaanay halkan maxay ka soo doontay ananiya taliya waardiyahaas haddii aan waraysano waxaa laga yaabaa inuu warbixinna siiyo nasarac waardiye ya airfonka maa ku cusub haa mudan gurigan qofka iskale ayaan rabnay ma joogaa ninka gurigan iskale horta kitaaba laa wuxuuna ku noolyahay dalka kanada halkan ma joogo qofay saaxiibiinu mar walba la soco jira ma jiraa hal nin oo keliya ayaa la soco jira ninkaas yuu yahay horta aniga ninkaas si fiican uma aqaan laakiin qaabkiisa haddaa ku sheegtin badan ayuu leeyahay garna wuu leeyahay da'diisana 40 ayaa ku qiyaasay barmali sawirka tus fiiri sawirkan inaad aqoonsato ayaa laga yaabaa ninkaas sig le waabe barmali haa taliya meeshan waxbaa ka dhacay taliye kaale meeshan arag dhiig ayaa ku daadsane taliya qofka falka geysta wuxuu isku dayay caddaynta inuu baabi'iyo waxay la tahay dil inuu ka dhaxay dil ah taliye
dilkaasina waqti ayaa ka soo wareegtay dhiigga xataa waa madoobaaday tali ilaag tali hadda ayaan la soo wacay waxaana loo sheegay meed in duleedka laga helay okay waa inay soo ogaataan mimarigaa waxa ku jira waaya tali nakeen taliya qoftan aniga ku aqaana waa anaa hadda waxayna u caddaatay dilka raanaa ananiya inaysan ka dambaynin taliya kiiska uu sii farabatay raana ayaan ku mashquulsanay haddana anna ayaaba soo baxday sidee wax u jira taliya mimirigan aan helna markaan baaritaan ku sameynay waxaan aragnay muuqaalkan inuu ku jiro maanta aad ayaan u faraxsanahay sababtoo ah qoftii ayaa ii soo socoto oo idhahaysa muuqaalka eji maaha laakiin maantan muuqaalkaasoo eji e ka duuba waana la arki doonaa wixii ka dhacan ku dhahay waa yaabaysiin abbaa ilaa fool ku taala wakhtigaad ka soo hormartay waqtigayga inaan kadib dhac ma jecli ballantana waan ilaaliyaa tii qurux ahayd way kugu dhammaatay ka warane indhaha ma u roono aad iyo aad ma aragtaa jawigiisoo u macaan badan yahay caawo adigana horteeda ayaad fadhisaa soo kuma habboona aniga adiga inaan wada dhelno ha haddii aadan qalad ii fahmayn sideed u aragtaa cabitaanka haddii aan aniga noo shubo maxaan ku diidayaa macaanta hal mid ma ku dhahaa waad i dhihi kartaa cabitaanka haddaad cabtid waxaan ka baqaa inaad isku dhex yaacdo
laakiin dhib ma leh anigaa kuu jooga wax ma ka halaabaayo waad qurux badan tahay caqlina waa leedahay hadda waxaad u timid fideogaas inaad badbaadisid anigana aad iqancisid saas soo maaha waa okay xisaabta dhagdhagay noqonaysaa raanaha haddii aad cadow ka dhigato nafsadaada halis ayay gelaysaa warka ma ku galay yaa diidi karaa beella waay saaxiibtinimo haddii wax walba noogu dhammaan karaan cadowtinimada maxaa dhexdeena keena waxa aan kugu jeclaadayaaba intaas ka helitaanka iyo jaceylka meel noo dhig aniga qof dumar ayaan ahay halkaana waxaan u imaaday sharafteeda inaan badbaadiyo sharafteeda inaan badbaadsado darteed maxaan u samayn karaa qiyaas beella waay dheeshaada waa ka helay jawiga aad ayuu u qurux badan yahay gabar qurux badanne way i ag fadhisaa marka maxaa diidaya inaan baashaalno cabitaanka cabo waan wada cabaynaa weliba si farxad ay ku dheehan tahay ayaan labadeenna u baashaalaynaa adiga run ahaantii waxaad tahay gabar qurux badan laakiin kaale cabitaanka maxaad iigu dartay waan hubaa inaad wax igu dartay warkaali maxaa igu dhufatay madaxaad jibise doqon xun ayaa tahay adiga waxaad u mooday inaad aniga iga caqli badan tahay kadibna waxaad doontay aad iga samaysato waad saxanta halkan waad igu yeertay waxaadna igu yeertay danta aad iga lahayd inaad iga gaarto balse taas kuma aysan suurtogelin adiga hore waxaad ii tidhi waxaad tahay gabar caqli badan weliba qurux badan quruxdaydana noocaagoo kaleeto maba lagu khasaariyo waan ka taxadira noocaagoo kale aniga inuu igu digto mar walbana oo ii cagajuglay war aniga saaxiibkayga hanti ayuu leeyahay hantidaas darteed ayaan ku raacay adigana haddii aad sidaan mar walba iguga cagajuglaysid daqliga dhankiisa iga soo galaya daah ayaa iga saarmaayo mana raba taas inay dhacdo marka aniga waxaan ku fikiray waddadayda in aan kaa hor leexiyo masiibo ayaad igu noqotay mar dhowna waan ku soo afjaraya wayna kuu dhammaato doqoyo siima noolaanaysid waddadaada miyaad isku dayaysaa aniga inaad iga leexiso bal aan arko qaabka aad waddadaada iga leexin laheed maxaad waddadaada iga leexisaa adigaa dhimanaya waddadii aniga mad waryaa isiidaa wartimaha isiidaa maxaad igu dhagan tahay wasaqyay soco istabid waaba qalad doqon adigoo kalea dunida dusheeda in uu sii saarnaado dantana waxay ibadaysaa in aan kuu dhammeeyo mana laga yaabo maanta inaad iga badbaado waan kuu dhammaynaya
taliya raanaa gacantiisa way dhaqaaqaysaa adiga halkan waxaad u timid aniga inaad ii dhammayso waa ka xumahay aday kuu dhammaatay hadda waa kanay meydkaada halkan iu yaallaa maba ahaynba inuu meydkaada halkan iisii yaallo waa inaan meelaan la arkaynin kugu qariyaa ananiya waxay u baxday raana inay disho balse ayadaa bala dilay tali horta muuqaalkan markaan daawanay waxaa noo soo baxday raana in gabadhan dilkeeda uu ka dambeeyo laakiin waxaa isweydiin mudan raana naftirkiisa iyaa dilay ma waxaan dhihi karnaa waxaa dishay gabadha jaariyadda ahayd mase waardiyaha mase gabadha kaleoo isaga markaas rikaatada gelisay arrinkan waa inaan falqaynaa taliya taliya waxaa macquul raanaa dilkiisa inay ka dambeeyaan shaqaalada guriga ka shaqayso waardiyaha ama ninka guriga iskale midkood wuu ka dambeyn karaa tali hadda waxaynu ku qasbannahay jannaaya inaan sida ugu dhaqsiyaha badan maxkamadda aan u geyno si arrinkeeda wax loogu dhaco kiiska dabadheera ee beryahan socday ee lagu haystay gabadha lagu magacaabay jinaaya ayaa hadda waxaa la go'aamiyey in maxkamadda la saaro balse annaga haddaynu wariyaalnahay waxaynu hortaagannahay maxkamadda horteeda waxaynu sugaynaa waxa ka soo baxo kiiskaas iyo maxkamadda jinaaya waxay ku xukunto iyo waxay la damacsantahay iyo in janaaya dilkaasi ay geysatay iyo in kale fiir saaxib cod ku darbal balse dhibaatada meesha ka taagan ayaa waxay tahay jawaabtii ilaa hadda ma soo bixin sidaad wada ogsoontihiinba maalmahan waxaa lagu dheganaa gabadha janaaya la yidhaahdo gabadhaasi dil ayaa loo haystay maanta maxkamadda ayay saaran tahay waxaynu sugaynaa go'aanka ka soo baxa maxkamadda walow gabadhaasi ilaa hadda aana wax caddayna lagu haynin waana arki doonnaa go'aanka maxkamaddu ay gaarto maxkamaddu waa inoo furantaa kiiska waad bilaabi kartaan mahadsanid mudane garsoore maxkamadda wakhtigeeda waa in la ilaaliyaa kiiskan aan arkayno waa kiis dila kiiskan waa uu cad yahay middeeda kale qofka dilka geystay qof kale maaha waa misis janaayaa hadal walbo aan ku leeyahayna waxaan rabaa in layga qoro dembigoo dhan ayada ayaa afkeeda ka qiratay haye mrs grover hadalkayga soo sax maa maskaxdeeda imaankeeda oo taamah ayay saldhigga waxay ka hor qiratay inay ka dambaysay dilka mister raanaa garsoore dood ayaan ka qabaa taas dooddu waa ay kuu furan tahay soo istaag mudane garsoore shanaayaa afkeeda hadday ka qiratay inay dembiilo tahay taas micneheeda maahan dembigan inay geysatay haddiiba laysku xukumayo afka in wax laga qirto oo keliya gootanba afkiisa ayuu ka sheegtay master gotham wuxuu ku cabaadaya weliba uu ku qeylinayo inuu ninkaas dilay weliba dembigaasna uu geystay waxaasoo dhanna wuxuu u samaynaya xaaskiisa marxaladda wakhtigaas ee ku sugan tahay inuu ka saaro sidoo kale shanaayane waxaa suuragala garsoore inay diidayso ninkeeda dembi in dusha laga saaro sidaas darteedna ay u sheegatay dembigoo dhan marka adiga ma waxaad xugminaysaa hadalkay afkooda ka dhaheen waaw ish calaa badbaadaysaan ku dheh nin inaagtiisa way isbadbaadiyeen adiga xaaskiisa ayaa tahay adigoo badbaadinaysa ayaa dembigan dusha iska saartay balse adiga ma la socotaa mister grover oo ay xaas qurux badan guriga u joogto siduu gogoldhaaf u sameeyey taas waa arrin idinka idin qaasa waa inaan ka gudbaa adiga haddii aan kuu soo jeesto waxaad ii sheegtay janaaya markii kow xabsiga la keenayay gacanta inuu dhaawac kaga yaallay adigana waxaad noo sheegtay dhaawacaas inuu ka soo gaaray ayadoo basal jarjaraysa marka qof basal jarjaraayo iyo xididka maxaa isu keenay abukaas adigana waa kaaya maanta ma waxaad keentay sharciga ayaa go'aaminaya qof haddii uu basal jaraayo farta oo keliya inay ka jarto amar halla aamuso mudane garsoore ilaa iyo hadda lama haya caddayn sax oo caddaynaysa raanaa dembigiisa qofkii ka dambeeyey iyo cid ku lug lahayd intaba booliskana ilaa iyo hadda hubkii raanaa lagu dila maysa soo saaran waan ognahay hubka inay isku mid yihiin laakiin maxay kala yihiin intaba inaan ogaano ayaan u baahannahay soo maa
garsoore dhammaanteen waxaa noo cad booliiska caddeen dhab oo caddeynaysa gabadhan dilka inay geysatay inaysan meeshaan keenin anigana meeshaas ayaan uga baxay isbatooro lokandi adigoo raalliya maxkamadda waa inaad soo hor istaagtaa oo mambarkaa soo fuushaa si aan su'aal ku weydiinno isbatooro lokandi warbixinta aynu hayno waxay sheegaysaa in muddo 3 maalmooda gabadhaas aad ku haysay saldhigga maxaad soo baartay oo aad soo ogaatay inaan ogaanno ayaan rabnaa maxkamadda soo hordhig garsoore waa sax shinaaya caddeema saxa inaan ka keeno aniga waan ku guuldaraysta caddeynoo kaliya ma maqno qofka la dilo hubkii lagu dilo ilaahay hadda maxkamadda maadan hor keenin maxay ku dhacday garsoore iga raal noqo dembiilaha ciqaabtiisa inaan marsiiyo waan awoodi kari waaye balse dembiilaha aqoon fiican ayaan u leeyahay waa kuma dilaaga maxkamadda caddayn ayay wax ku aamintaa anigana dilaaga wax caddayna kama haayo sidaas darteed ayaan u aamusanahay mrs grover adiga dembi ayaa lagugu soo eedeeyey dembigaas lagugu soo eedeeyey inaad ka hadashid oo aad ka doodid ma rabtaa marka maadaama master lokonde wixii cadeymo oo hayay uu maxkamadda hor keenay maxkamadda ayaa go'aan ka gaaraysa sida weliba ugu dhaqsiyaha badan maxkamaddu qoftan waa ay beri yeelaysaa maadaama marwe janaaya xornimadeedii dib loogu celinayo oo ay maxkamaddu fasaxday 3 cashoo booliska Mumbai ay xabsiga ku hayeen ayaan waxaan ka siinaynaa raaligelin buuxda booliskuna tilaabo noocaas oo kale mar dambe aysan qaadin haye soo u socod waan kuu soo socdaa haydahsan inta kale anaa dhammaystiraya waa nimid fideoga ma itusid marka فيديو سو مرين aniga qanxihe isida ay taaban balantaan meeya iska jiraan ku dhahay nafsadaada halaagi nimisha ma tarabtaa kaali amaya isida awriya kaali halkee u cararaysaa aniga miyaad ii cararaysaa maxaad ugu baxday balanta anaa ku aqaano haddaan shaqaynin waraan sii sheegnaa warbixin baan doonaynaa maadaama 3 cisho xabsiga lagugu hayay arrinkaas maxaad naga dhihi lahayd oo maxkamadda gabadhii celiya isbatoor lugandey waa markii ugu horreysay adiga kiis lagu dhibay kiiskaasna aad ku guuldareysatay maxaa sababa ii sheeg dilaagana maxaad soo qaban weysay war aniga dembiile awood uma laha inuu iga baxsado qofaan dembi lahaynna ciqaab ma marsiiyo kiiskan baaritaankiis markii la bilaabay waxaan tegey goobta uu dilka ka dhacay isla markii aan tegeyna indhahayga waxay qabteen caddayn oo booliska indhahooda uusan qabanin
maalintaasina hal mar ayaan laba arrin wada ogaaday tan koowaad shinaaya inay dilaada tahay midda labaad raana inuu yahay qofka xun sababta aan shinaaya u waraysanayana ma ahayn dilaada inay ayada tahay balse aniga waxaan rabay daruufaha iyada ku kaliftay dilkaas inay geysato inaan ogaado 3 maalin gudahood ayaan waxaan ku ogaaday shinaaya ayadoo dilaa ah haddana inay tahay qof daacadda oo wax dembi aanan lahayn xaqiiqda ayaa waxay tahay raanaa dadka xaafadda degan dhan nafta inuu keeni jiray anaaniyane raanaa dartiisa ayay u dhimatay mararka qaar qofka la dilay waxaa ka xanuun badan qofka dilka geystay shinaaya haddii ciqaab aan marsii lahaa farxadda familkeeda ayaa dhumi lahaa wax walbana waxay u samaysay farxadda familkeeda anigoo sharci darro ku dhaqmo ayaa haddana si sharci ah u shaqeeyaa maadaama mararka qaar sharci darro aan ku shaqeeyo taas micneheeda ma aha inaan ahay laaluush qaadin